hotel Kamana Guest House ee magaalada Boorama waxa uu maanta urur siyaasadeedkan rays oo kamid ah urur siyaasadeedyada ka dhisan Somaliland ku soo bandhigay 9 musharax oo u taagan doorashada golaha deegaanka ee degmada Boorama. Munaasabadan waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa urur siyaasadeedkaasi rays, salaadiin, waxgarad, uqaal, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimadda gobolkan ee magaalada Boorama. ugu horeen munaasabadan waxa ka hadleen musharaxiin kamid ah 9 musharax oo isku soo taagay doorashada golaha deegaanka ee degmada Boorama una tartamaya urur siyaasadeedkan rays kuwaasoo madashan ku soo bandhigay dareenkooda maanta. waxaa laga rabaa magaalo qurux badan oo dhinac walba ka dhisan taas waa mid لكن هو يشوف عن شو مغري إن أو حسب ذلك الموضوع ما دام أنت أصلاً والجنريشن ما توصل التجربة. أيوة كذا بسالي أنت أنت جالس تقول كتابة وعن الطاقة كبار سالي وعوية إنا أنت أصلاً عن كشقينه إذا كانوا عن يسمينا ساجد يسمينا. إذا كان قدومي كحجان كور سياسات كان الرئيس سليمان آدم قلمبي أو إثناء مدشان هذا لك جدي أي وحى وكشك يهمي جود سياسات هدي أي كجولستان دورشين كدوان كسوف له سوماليلان. waxaan ugu nimid inaan soo shaacayno toban xildhibaan oo kale oo ka tirsan ururka rays degmada Boorama. markii hore 9 baan soo shaacaynay marka iminka marka tobanka waxay noqonayaan 19 macnaheedu maaha laba dhiman labadii weyne maaha macnaheedu macnaheedu waxa weeyaan boqorka waa ka hadlay haweenka ayaa saddex xubnood haweenku way gabeen labadooda waa suulinaa raggi lagu hadlaan haddaa qaadan weyda kula soo qaadan weydaan waa lagu leeyahay raggii diyaarka yihiin inay hada xubnood iska qaataan waxaan jecelahay inaad soo baxdaan oo labada xubnood ku buuxisaan si uga saabeen kastaba haatee maalmihii ugu dambeeyay Boorama iyo deegaano badan oo Somaliland ka tirsan waxa ka socday soo bandhigista musharaxiin kala duwan oo urur siyaasadeedyada Somaliland ugu tartamaya doorashooyinka golaha deegaanka Somaliland ee dhawaan fooda nagu soo haya. Cabdi Fataax Axmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.